ahayd hooyay aabo hablo badan iyo hal wiil baan la dhashay sababta oo kula ha tii adkaatay waxba kama dhintaan deetana inankayga weyni markaa qorbuhu ku maqayo Mareykan buu ku maqay waana inankaa kaliya taan leenahay oo aabo oday kulul oo maasha Allah waxa weeyaan soo jeedo dab leh hooyo laakiin waa iska masaakiin waan gartay inantii ugu weyneed hablaha markaa guriga kama baxno gurigaas aan isku joognaa maadaama anagu badan oo isla leegan hayo habla mar wada kacay aan nahay anaga mashquul isugu filan inantii ugu weyneed baa oday kaansatay odaygii baa la siiyay odaygu markaa gabadhii uu la wareegay gabdho kale adigu waa la guursaday markaan tagno markaa xaafadaha walaalahayo markaan tagno inantan walaashay gurigeeda waxaanu ka dareenaa xoogaa qariib oo inantii waxa weeye nooma timaado wax badan lama joogi karno gurigeeda waxba kama soo helno xoogaa waxaan ku dareenaa qariib baan ku dareenaa hablaha kale laakiin waan la fadhiisanayo waan la soo shaahaynayo waxaan ka soo qaadan karnaa maadaama habla yaryar oo gacantooda maran tahay aan nahay waxaan ka soo qaadanayo hablaha kale gurigooda waan u xiisnaa inaan tagno walaashay laakiin gurigeeda inantan noogu weyn gurigeeda uma xiisno mana tagno markaan tagnana waxba iyaduna nooma timaado leerkii biyaa ka maqan inantii waxa u dhashay odaygii inan iyo inan bay u dhashay laba caruur ay u dhashay laba caruur marka u dhashay baa inantii xaqi u yimi way geeriyootay Allah yarxam arraahimiin inantii markay geeriyootay ayaa odaygii lagu yiri caruurta guriga keeno odaygii baa loo yeedhayo odaygii markii loo yeedhay ayaa waxa lagu yiri waxaad samaysaa waxaan ku siinaynaa gabadh xigsiisan caruurta dartood caruurtan yaryar ma rabno inaad naa kale reer kale u geyso marka anagoo caruurtan yaryar eegayna caruurta yaryar rajada awood waxaan ku siinaynaa gabadh xigsiisan waan gartay adigana booskii gabadhii kuu gasha oo oday weyn adiga gabadha booskii gabadhii kuu gasha caruurtana korisa oo hooyo u noqota waa gartay muxuudiina wuxuu yiri ma midaad idinku ii doorisaan mise midaan anigu doorto gabadha aad siinaysaan midika ii doorin mise midaan anigu doorto weeyaan oo ana gabdhaha kala dhaxbaxataan rabo ma odaygii baa oranaya waa ta fogaatay haye deetana waxa dhacday markaasuu aaba ku yiri may anagu midaan kuu doornaan ku siinaynaa intuu xanaaqay aaba waa oday kulul anaga ku siinayna taan ku garanaan ku siinayna xigsiisan ku siinayna anigu waxaan jeclaaday faadmo odaygan yani dhaqankiisii bal nooga waran intuu gabadhii hore walaashaa qabay dhaqankiisa malaha isaga nimankan hablaha qaba waa ninka ugu adag weeyaan ogda gabadha korkeeda horta marxuumadu ma ahayn qof hadasho oo tiraahdo dib igu sameey laakiin korkeeda laga dareemay inaanu u wanaagsanay faadmo gabadhu yani waxa idin soo yani waxaan gurigeeda qaleylka uu ahaa waxaan gurigeeda ugu raagay way dhibaataysanayd dhibaato ku hay marka kor waayay loo wada indhe waa la arkayay ninkana inaanu nin roon ahayn oo gabadha u roono nin fiican aanu ahayn way arkayay haddana caruurtan iyagoo ka duulaya caruurtan yaryar awgood weli waxay sii rabaan ninka ay arkayaan inay gabadh xigsiisana isaga de markaa ma siinayaan caruurta la ajnabiga gabdhaha yaryar qurquraha badan awgeed ba gabadhaas u sabso adkaati mooy ku soco deedna waxa dhacday waa kiirima anigu de waxaan jeclaan lahaa dad mid xigsiisanaysan anigu ka doortay waayahayo odaygii sidii buu ka baxay hooyaday baa markaa ii yeedhay waxay tiri hooyo waxay tiri hooyo walaasha waa tii geeriyootay Allah u naxariisto caruurta yaryar bay ka tagtay caruurta idinka tagtay idinka booskeedii ugu jira idinka hooyo u odaygii hebel ahaa ee caruurtan dhalay waxaan isla qaadanay aaba inaanu gabadh siino xigsiisan u siino caruurtan hooyo u noqoto gabadhana waxaanu isla sii qaadanay inaad adiga tahay oo adigu caruurtan hooyo u noqoto booskii walaashana aad gasho adaa hablaha markaa intan hadda joogto ugu roon deedna
وانا قال ما أضيق حن ولا شيء بس يسوي بالكين شري أضيق أنا كون نعبة يقول بيساب النعبة أضيق ولا شيء يسوي قلت شري أضيق أنا عبار باقي عروس هنا حسنا هنا لكن إني قد عي أضيق هاي مرة حاجة تري ما دام أنا كنا ده أنا كوسين هنا كبر حكسي سنة هذا أنا راح نسكت كبر كوم هنا واعد مرة ما دام أنا نري تعاقد أو قالوا هذا النحاسات الصار واي جبان أري محيدين أو أضيق ولا يجوري جوري مركان تجي أضيق هرت لمبركة ومحيدين واشمه لمبر لبا محيدين وأضيوس فضنا غيره فضنا هذا قدر كساو ما حاجة هرا كلها وانا حاجة هرا كسونا قبل كلها وانا يعني ما كل فاضمي تيمات كاتي waxay ku leeyihiin waxa aad ku ogaatay in washman yahay ma kol hore aad hore u soo qabatay waxaanu ku moodaynaa su'aasha marka su'aasha weydiiyeen maxaydiino waxa weeyaan tamar ma hayn ilkaha mudaadin kareen ما ogtahay ma aqaano ma garanayo maxaydiino deetana waxa dhacday in kaarku qaban maxaydiino adkaat afkii wuu juqtu gabay ka dhaafa xarqaanka dawaar adag ya hay ku soco deetana maxaydiino waxa dhacday Allahum saani halka markay marayso oo odaygii aan iskaga sabray aan ku sabarsanahay waad ku qanacday ilaa xaalad dad baa ku hay oo ay marka wuxuu ku darsaday yus marka gidaarkan maxaad u meedhay rinjigiiba gidaarkii ka qaaday weelkan hadaan meedhay weelkan horta maxaad markasta ka meedhay guriga hadaan masaxay guriga markasta lama masaxo biyo uu ku cadaanaya kelmad waxaan qabanayaa waa ka yusay waxaan qabanayaa oday yusaa weeyaa Soomaalidu kaasoo kale maxay oran jireen commentika ku soo qora qorqode hay waa raga qorqode iyo godad la ugu xun qorqode iyo godad ma taqaana ya godad intaadii waxa dambe kaga sii darsatay faaduma ku soo beetana waxa dhacday maxaydiino halka markay marayso noo sheeg godadle waxa weeyaan ninka godadka badan kala godadle meelaha fasiraad oo ninka dumarka badan weey aad iyo aad qorqodana waxa weeyaan ninka kitchada ku meeraystay guriga ayaa qorqoda la yiraahdaa hay waxa dhacday lamaan maxaydiin xiisa kulaha aragsan inuu ijafay ku haysataa ay ka war aragsan waxa dhacday hay waxa dhacday odaygii wax kasta uu igu haystaa dhiriga dabka saarayo dhinacu ila haysta hay anigoo yuuskii odaygii ka yaaban oo isla maxaa khaldan waa maxay odayga sida tan ayuu wuxuu bilaabay kaale horta markaan dhowr bad la joogay kaale horta adigu lootari ma xareynaysid bamiya mid iska joogtaa riskiga dhamaystisaad u sheegtay ma lootari xareynay lootariga maxaan xareynaya ilkihiiba muuridina ilkihii way liqliqanayaan oo keliya albaabka daahii soo dhaafilaya miya markaasaan warmaye ilaahay ma keenine istijibal shaydaanka iskan horta maxaa la qaybisaa halkii anagoo sidii isku haysana ayuu wuxuu bilaabay caruurtii inuu garaaco inantii yaraayo rajada ahayd inuu dilo inantii hadday saa u hadasho gowdaa ka saaro inankii hadduu saa u yara leexdo gowdaa ka saaro faadumo waxay ku leeyihiin ma waxaad ku tiri adaa wax matara noqday bay ku leeyihiin waa maxay caradanuu carruurta yareer ee rajada ku furfuraya maxay kumaan odhan oo qofkaan la soo sheegaystay anagu isfahmayn oon hadal kula dhiiran karayna maaha oo waa qof laysiiyey isagoo weyn waana qof dumaashigay ahaa waa qof haddana isagoo dumaashigay aan xaaskiisii oridiisii noqday haddana niyad iyo nafsadba uma hayo carruurta yareer baan guriga u jooga carruurta yareer baa guriga igu haysa isagoo iguma bahayo markaa saasaanan uba kala jeclayn oona waxba u odhan markaad tahayna kuma dhiiran karaysid intaanad wax dhalin ka hor hadaladaa kuma dhiiran karaysid waxaa dhacday markaa halkaa markay marayso ayuu carruurtii garaacay carruurtii gowda ka saaray inanka yareed maalinta dambe u adkeysan kara waxaan ku dhigayso carruurta yareer mar dambe haddaa taabto aniga adigay tegaysaa
caruurtayda maanigaa dhalay caruurtan yar baan guriga u joogaa oon kula dhalnay haddaad adigu dhashay mar dambe haddaad taabato inanteera rajada ilaahay hooyadood qaaday uu ka qaaday hooyadood ilaahay haddaad taabato waa aniga iyo adiga haye markaasuu markaan la hadlay naag mis badan oo qaylo badan aniga ila hadashaaba nacbay adduunka uu nacbay yaa ku yidhi hadal gacanta intuu saa u qaaday sidii qof doonaya inuu qof dharbaaxo kale haye dee doqonta usha agteeda ku dhuf hadday garan weydana bogowgel haddaan ka aamusi lahaa wuu ii gelin lahaay carkee baan ku odhi haddaad igu dhufato waa car haddaad igu dhufato يعني wuxuu ku leeyahay naag dheer baa tahay edeb baan kuu yeelaya haa gacantii uu saas loo yiri baan ka horgeeyay car haddaad nin tahay way igu dhufo gacantaada waxay soo gaadho wallaahi in adiga iyo aniga layna kala garan waayo markaa uu cabsaday dee oday weynoo tamar iyo iska yar tamar gaabana uu ahaay lafihiisa uu cabsado aadi soo qora Faadimo Fariido soo qora odaygu waa iska celis haye wuxuu yiri iyay kugu durdurin buu isiri waan gartay halkaa markay marayso ayaa waxa dhacday uu baxay markaa markuu baxay waxa islaamirahaas iskaga soo qayliyo iska soo qaadan waqti hadhow soo noqon gurigeygii baan iska hagaajisto caruurtii baan cashaysiyo cashadii u kariyo caruurtii baan seexiyo cashadiisii baan sii diyaarinayo dee gabadh murugo oo gurigeedii dhaqanaysa waxaasna khilaaf yar oo reerka ka dhex dhacay uun baan u arkay wuxuu yidhi inuu ninkii uu ordayo reerkaygii intuu u tegey oo hooyada kaliya guriga joogay uu u tegey ayuu wuxuu ku yidhi gabadhii waxaan doonayaa inaan furo gabadhii waan islaynay gabadhii khilaafkeedii waa badatay murankeedii waa batay buuqeedii waa batay sanad markaa wax dhiman baan wada joognaa intaa sanadkaa wax la dulqaad iyo sabir baan ku hayay gabadhii waxaan doonayaa inaan idiin furo madaxeeda idin siiyo aan idiin furo gabadhii waxaan doonayaa in laga bedelo gabadh kale laga bedelo halkaa ii joog su-aashii hore markii hore aan ka gabanayay baan rabaa inaan weydiiyo timadkaatay buulka usoo tur waxaad ku tiraa waxaad usoo tur buulka inta aaminsan inuu odaygaasi gabadhii ugu horeysay gabadhan Faadimo la dhalatay uu qacantiisa ku dilay qosolkaa taabato inta lama dilina oo intaa taabato adkaatay tani yaa gabadhan waan idin furayaa ina bedela tu kale iigu bedela xagga afar baa ku goda yaa waxaan marin baa Faadimo ku soco aada weyn deetana waxa dhacday wuxuu sameeyey inantahay maxay warkaasay ku tiri hooy maxaa tiri markaasuu gabadhiina waan furayaa maadaama fahmi waayey waxaan doonayaa inaad ii bedeshaan oo gabadh kalena aada isiisaan markaa hooy waxay ku tiri nin weyna waa tahay reerkana gacal iyo xidid baad la tahay waxanaad ku hadlaysaa anigu garan maaye bal hadda nin weyn baa tahay hadalkaaga miisaan hooyo isagoo hooyo hadalkii sidii ku leedahay baa aaba halkaasoo kale ka soo galay aaba markaa maxaa jira salaamu calaykum nabad ma jirtaa maanta inankii baa joogay wax dhibaataa baa jirta odaygii xataa odaygii aabaha muu sugino islaantii hooyadaaba warankii usoo bandhigay aaba markuu halkan soo fadhiistay yidhi maxaa jira bal ii waran bal warayso anigu wiilkan garan maayo wuxuu ku hadlaya markaasuu yidhi maxaa jira adeer bal waran nabad ma jirtaa markaasuu yidhi maya nabad ma jirto gabadhii waanu islaynay muddaba waanu ishaysanay oo aniga iska aamusnaa maantana dee gacan qaad bayba bilowday habartii indho la-aantii dad cunimay ku darsatay dulqaadkii aan ku waday gacan qaad bay ku darsatay markaa maadaama ay gacan qaad ku darsatay inantii waxaan doonayaa inaan inantii furo oo aan warqadeedii soo diro si idin dhigo madaxeedii keliyaata intaa ma doonay waxaan doonayaa inaad gabadhna iigu bedeshaano maadaama aad markii horeba xigsiisan gabadha ii siiseen hadeerna gabadhan aad iga soo kaxaysataan mid kalena aad isiisaan caruurta dee haysoon xigsiisan ahaan u guursado aad ii bedeshaan waan gartay odaygii aaba markaa intuu dhalaalay oday kululna wuu ahaa uu dhalaalay buu kiri markaa ma dhar hudheedho inta kuwana la siibo kuwana la gashanaya hablahaygu timir xabaalo taaloon bidi ka dhigay bay Faadimo ku soco wargabadhi ma kaa dhimatay sharaf ma ka raacayo adigoon aan ku ogahay inaad qof xun tahay haddana inantaydii kale xigsiisan ahaan guursii anoo caruurtaa yar eegaya gabadhaydii soo imaad odhan waan kuu furay halkaa kale ma kacdid warqadeedii madaxeeda halkaa kale ma kacdid albaabkaasna ka bax hadalkaasna marbu afkaaga kasoo baxay
sakan hadduu kasoo baxo afkaaga iska jir. صح warqadii baa halkii layga qaaday halkii buu dalaaqi ku yeedhiyey anoo gurigeygii markaa iska dee marwo gurigeyga uunsi iyo luubaanka ku shitayo cashadiisii diyaariyey caruurtii ii jiifto albaabkan lasoo garaacaba isagii aan moodayo ayaa la yimi laygu yiri ninkii uu ku furay soo bax اسمه soo qaada dharkaaga عشان ديارنا صح cashadii baan diyaarinaya gurigii baan uunsigii iyo luubaankii ku shiday هاي soo bax baa laygu yiri ka soo bax waayahay farxad horta waan farxay dharkaygii inaan ka tagaan ku sigtay dharkaygii baan soo urursaday raxmadii furan anigoo la albaabka kasii baxay caruurtii kaxaysanayo gurigeygii baan tagnaa caruurtii haddaan haysano waan markaa waqtigii dee dagaaladii sokeeye soomaalida hubka isku qaatay ay tahayo aanu meel gobola joogno ayaa walaalkay wuxuu yiri waxaad timaadaan Nairobi waxaan idiin xareynayaa process waxaan doonayaa inaan dacwadeedii bilaabo waay iskiiniyo dhan ha Nairobi baan nimasaan ku dhamaystirnayn Nairobi markaanu nimi oon halkii joogno hablo markaa guriga iskaga asturan oo aan bixin oo looba ogolay aabahay haddaan dukaanka wax ka doonano banaanka nagu arko anagoo marayna qaar buu nala soo dhacay maxaad u soo baxdeen iyo xagaad u socoteeriye maxaad doonaysaan cidba naga hadlaysiin mayso هاي ayaa waxaa dhacday oo aanu markaa madrasad quraana tagno gurigeena aanu joogno oo dad guriga joogaan nahay oo guriga iska joogo madrasada quraankana taga aan nahay ayaa waxaana bartay hablihii baana bartay maadaama aanan guriga ka bixin hablihii baana bartayo gurigeena ugu yimaadana way noo soo sheeko tagaan maadaama aanu anagu group nahay oo anagu isku filanahay anagu isku sheekayo wax kasta isku filanahay لو مرة واحدة درس hablihii jaarka ahaa caliyo muudgal علي أمورك deedna waxaa dhacday halkaas markay marayso هذا ما يموت صار waay dushaan ka saaray muudkii كسر kasii siibanayaa muudkii adigu muudka xidho ma ogola in muud la saaro وكسي سيبنا يا أذكرت adigu muud saar ma odhan كسر شنقدي ودا يقول لي كسيب تادو دونا هذا ما له حد كوغل فننا haddaba ugu sii dhafo intuu khoorin lahaa ama isagoo kool qabanaya lama qali lahaa hore waxa dhacday markaa maxaydiinow Allahu musta'aan calaamad markaa nimi hablihii markaa jaarka noo imanayay naga sheekaysanayay hablaha madrasada isla dhiganayay inan kamid ah markaa hablaha inan kamid ah هاي ayaa waxa Mareykan uga yimi inanay qaraabo yihiin inanku markaa waa guurdoon inankii waxa ku tiri reer halkana gabdha asturan oo akhlaaq leh guriga fadhiyo oo halkaas oo qurux badan oo maasha Allah oo hadda wadankii ka soo guuray baa jire gabdhahaas maad ka eegatid mid kale baxsid تيمت كاتس ديارية هذا الشيء كذا بلا مريسا ha hada qasarada bilaabmaysa beerkana waxa dhacday maalintii dambe haween anagoo wada socona ayana tustay amarkii Ilaahay inankii anigu iga helay اوكي ديكو طريق مرة يا شيء الله اذا كتصي nala tusay هاي anigu iga helay aniga markuu iga helay inankii wuxuu ii soo bandhigtay sheeko marka iyo xidhiidh واكو waxaan ku yiri sheekada iyo xidhiidhka waan ka aqbalayaa laakiin shuruud lambarkow horta waxaan kuu sheegayaa anigu inan ma ihi oday walaashay ka dhimatay baa xigsiisan lay siiyey sanad wax laabaan la noolaa odaygaasaan la jooga odaygaas ay soo qabayo inan garoob baan ahay ma ihi inan والله garoob baa tahay ha garoob baan warfariisana faadimo waxaad u sheegtay inuu awr aan naf lahayn kugu soo durduriyey igu soo durduriyey qodobka labaad baan ku yiri anigu walaashaydaas dhimatay caruurtii ay ka dhimatay ayaan haystaa oon hooyo u ahay haddaad aniga i guursanaysid caruurteydana waad la guursanaysid anigu caruurteydaas igama hadhayso aniga sanadkaasna anay iga joogeen markii dambena anay hooyo ii yaqaanaan aniga haysta caruurteyda haddaad igu rabtid labada caruur ayadee ahlan wasahlan lacala haddaan heshiiska ku heshiino weeyaan ما شاء الله هاي
aan sheekada ku heshiino waayahay buu yiri bal horta sheekada iga aqbalo aynu sheekaysano bal hadda inaynu isfahanaa ka horeysa guure waayahay inankii markuu caruurtii iga aqbalay inaan garoob ahayn aan u sheegay uu yiri waan ku aqbalay labadaasba aan gurigii imi ayaan qaar guriga jooga markaana uga sheekaynayo leh maanta nin baan soo aragnoo ninkii halkaas uu ila leexdo saas uu yiri sheekadii waan ka aqbalayo waxaan ku wadi shuruudaasaan wata anigu caruurta yareeyna aniga daba soconaysay hooyaday maqashay iyaad u waramaysaa markaa ma walaalaha hablo walaalahay guriga joogay markuu aniga intaan aan isdhaafsanayna ilaa aniga isaga kaliya taan ahayn hablaha walaalada waxa ma kala qarsano haday mididiig eedaamaya soo maqasho guriga keenaysa okay farid hay ku soo hablihii markaa ana u warramaya bay hooyaday dhigta ka maqashay markaas ay igu tiri waxaan ku weydiiyay hooyo hadii ilaahay calafkaaga ku soo saarayo oo ilaahay nin wanaagsan ku siinayo caruurtan yarar waxba xadhig ha iskaga dhigin ana idinkeedii soo koriyay caruurtana idinma baahno anaa korinaya markaa ninaadu caruur jiidanayo kuma rabe ninkii ilaahay calafka ugu dare ilaahay uu ka ku keeno waxba ha oran culays bay saaran iyo caruur baan waday waxa ha oran ka warwar la caruurta tan hay hooyo ma anaga soo korisay caruurtana korin karaysaa idinka baan soo koriyay kuwana dhibiguma lehe wixii aad la sheekaysanaysaa haddii uu guurkaa rabo waxba shuruud ha uga dhigin caruurteeda halkii hadday sidii tahay inankii sheekaysanay inankii xoogaa markaan sheekaysanay uu laabtay maraykankiibuu ku laabtay inankii muxuudiinoo bash baan isku nidhi hortiiba jacayl ma arag hortiiba nin ma arag hortiiba qof salaanta kama qaado waa salaantii caadiga hortiiba heble maan ahayn inankaasi taleefonka markuu saa usoo garaacayo uu heesaya ana mar alaale inuu wuxuu ahaa markasta heesa oo hees buu qaadaya markasta faadimo marmarka qaarkeed aanta ma ku tuurataan dirgax may dhaantadii weli maanaan gaadhin tii waaweynad weli maanaan gaadhin muxuudiin lagugu dhufay uu sugi laayahay muxuudiin waxa weeyaan dadka marxaladii joogaan ku cabira hees ku cabira taleefonka haduu soo garaaco markasta hees buu qaadaya anigii baa markaa la qabsaday taleefonkiisu markuu saa soo dhacaba hees baan sii qaada markaan qaado beejka ku xiguu qaada markaasaanu sheekadayadii isla galnaayo inankii bash baan isku nidhi inankii tikin inaanan ka waa murgaxoo xaggaa fadhiyoon murgaxoo halkaa fadhiya inankii bash markaanu isku nidhiyo noloshu isku kaaya haysato inankii aan saa isugu da-ayno oon inankii muddo badan wada socono oo indhahiisa anigu indhihiisa aan wax ku arko isaguna kuwayga uu wax ku arko dhigihiisa wax ku maqlo isna kuwayga uu wax ku maqlo qalbigayga ay isdhegaystaan ayaa waxa dhacday shaashada inoo garaac asxaabay dadka u daadinaya hal mar shaashada garaac maxaa dhacay faadimo ayaa waxa dhacday markaxow muxuudiinow inankii oo maraykan joogay anagana waxa noo soo baxay processkii dadka uu daadinaya biliis shaashada garaaca processkii baa noo soo baxay processkii markuu noo soo baxay baan ugu bushaareeyay inaan soo tegayno markaas wuxuu igu yidhi aan ku mehersado haddaba waxaan ku uri maya waxba meherka hadda kusoo degdegayna markaa aan nimaadno hadda waama soo socdaa safar baan soo ahay markaasaan meherkay guurkay waxaaba ka wada hadlaynaa waayahay kadibna maraykankii inankiina soo dhawee isdegnayo meherkii baa dhacay meherkii markuu dhacay gurigii baan soo goglano waan soo sharaxanayo gurigii baan wada degnay muxuudiinow inanka waxaan ku uri jacaylka iyo romantiga quruxda waa nin dheero 2 mitira waxaan ku leeyahay sigisbaaga albaabka markaa maraya la soo qaadanaya waxaan ku uri xuduudii Kashmir waa la xuray waxaan ku dhinac kastaba waa dhame way waa dhame u dhameystiray inankii hadaanu saabash isugu niriyo aan isku faraxsanahay fiidkii filim wada daawano intaan leerarka baqtiisano
filim wada daawano halkaa laabtiisa ku kamo nolosha ay saa u da-ayso waxaan kuudhiyay jacaylka iyo quruxda iyo wanaagga iyo noloshuba masaanay ahayd odaygii igu dul qufaayo markuu yidhaahdo ka raystay bukaanadii baan qaadaya baraarugayo ilbaxay ma waxaan oo kalaa jiray ayaa lootarigii koobaad markaa xaraynay ilmihii baan umulay ilmihii markaan umulay ayaa waxaa dhacday aan xoogaa joognay ba waxaan kusoo noqonay ilmihii labaad baan lootarigii xaraynay ilmihii labaad maya intaanaan soo noqon ilmihii labaad baan lootarigii xaraynay ilmihii labaad markaa maya intaanan ilmaha labaad xarayn ba waxaan ku noqonay kenyaan tagnay kenya markaanu aadnay baan xoogaa kenya soo joognay oon xoogaa waan tegayaa biir waan ku raacayaa baan ku odhi kenyaan tagnay xoogaa baan kenya soo joognay show intaan kenya joognay ayuu gabadh kenya ku guursaday show intaanu kenya joognay ayuu gabadh kenya ku guursaday adu markaa ma isugu da-aynay ma goormuu guursaday inanta mala aqal galay lama aqal galay ma sheegi karay goormuu guursaday ma jinba ma insiba ninka si kastaad u ilaalinayso si kastaad ula socoto hadduu wax maagan yahay lagama reebi kara waa maxuu la jinbada raacaysa adoo xageed ku maqnayd bal adba maxilligaan seexduu naagtan guursaday ma markaan suuqa alaabta kasoo iibsanay u guursaday ma inta yar uu ileeyahay qaraaba soo salaam ama asxaaba buu guursaday bal adba sheeg horta guursaday bal adba kaalay waxa dhacday iska soo noqonay anigu waxaa ma ogi iska soo noqonay daacad baan ahay waan jeclahay waxaan ku leeyahay saasaanu daayaa nolosheedu waa noloshiisa anigu daacad baan ahay oo taleefankiisa ma baadho ma dabagalo qof ilaahay baan ahay oo sijaayadaas ilaahay waxaan idhaahdana ma waayo sijaayadaa taaganoo daacad iska ah waxaan ahay nolosheedaa iskaga qanacsanaya gurigeedaa quruxda badan balaayaba ma dooninba balaayo hurdaba ha soo toosin maba dooninba soo noqonay second babygii baan caloosha ku qaaday second babygii baan dhalay second babygii markaan 2 caruur haysto ayaa oo aan gurigii joogno markaa inanku markaa waxay ku dhahdaa waan baxayaa saaxiibadii baan aadaya waan baxayaa maanta halkan aan tegaya waan baxayaa halkan aan kasoo laabanaya waan baxayaa uu igu yidhaahdo magaalada gurigaba aanu fadhiisanoo aad maalmihii dambe markaa u socod batay ma banaanka markuu aado gabadha lasoo hadlaa ama taleefonka ka baqayna adigu ma garanaya socodkiisii beryihii dambe uu batay ayaan maalin waxaan maqlay anoo kujada jooga isagoo taleefon ku hadlay oo leh qofkan gurigu jooga markaa taleefon buu ku hadlaya laylayn buu ku hadlay markaa laylaynka guriga noogu jira laylaynku markaa hurdadana uu ku xidhan yahay fadhigana uu ku xidhan yahay laylaynku ku hadlay laylaynku ku hadlaya markaa qofku la hadlaya anigu ma garanayo maninba ma naagba anigu ma garanayo adigu ma garanaysaa maxidiino ayaa waxa dhacday taleefonka kala qabo tiimadkaati waa taleefonkii caadiga ahaa laynkii guriga yaalay weeye wax kala sawirran ayaa waxa dhacday wuxuu leeyahay markaa kelmad baa dhigahay kusoo duushay wuxuu leeyahay anigu heesaha ayaan dadka wax ku fahansiiyaa qofka waa sarbeebta keliya aan isticmaalo heeso markaan heesiga anigu waa sarbeebta keliya aan isticmaalo heesahan dadka wax ku fahansiiyaa heesahan dadka wax ku fahansiiyaa wax badan markaa uma sii qaadan hawshaydii baan iska sii waday yuu la hadlayaa maan sii dabagelin oo balaayo hurdaha toosin baa aniga igu jirta balaayo hurdaha isku toosine ma aqaano wuxuu la hadlayaa anigu laakiin daacad baan ahay markay xoogaa kasoo wareegtay leyrkii biyaa kaa maqanay Faatimo soo kan wixii hubkii lagu adeegsanayay baabaad maqashay xoogaa markaan kasoo wareegtay ayuu wuxuu kasoo garay albaabka markuu saa uga soo galo uu iska heesaya ama hees jacayl ha ahaato ama hees xasuus ha ahaato ama hees waxay doonta ha ahaatee markuu saa albaabka soo galo uu iska heesaya marka iminka fikrad baan ka haystaa heesihiisa waan eegaya soo maaha dadkaat waa muuse wada muxibba goor walba albaabka wuxuu kasoo galay isagoo leh isma og aqalkii bay aslaysaa ismana oga oo cad oo daacada
anigu markaa weel baan xalayo kujadii baan ka shaqeynaya caruurtii baa halkan ii fadhido de hawl guri baan ku mashquulsana albaabka wuxuu ka soo galay isagoo le isma oga aqalkii bay aslaysaa ismana oga oo saa u jaasaya markaa waxaa igu soo xaatay kelmadii uu lahaa heesaha sarbeeb isma oga aqalkii bay aslaysaa oo kaalay show ismaba ogida biyaha ku hoos maraya way uu kuuley markaa weli baan weydiin isaga laakiin aniga naftaydi la sheekaysanaya waagaa kugu baryay ها محو كوضع محاند أوجين وامحي وحناند أوجين وامحي وحنا كله هي وامحي حالته بقى تحتحي أنا كلي أتوي مكان لكن ولي إسقي وما شيء أنا هذا كله محد هو دوان سكال هذا يقفله هذا الحني محلي هذا الأدقي علاتنا كم جارسينا بطنا وكعك حي هذا الأدقي قيل يبوق يجريني كل هذا لا هذا حلي أنا يا falanqayn uurkaaga un ku kooban aniga iyo naftaydi muxuu ka wadaa maxaa khaldan xagee waxaanad ogeyn waa maxay wuxuusaan kuu leeyay maxay tahay wax badan baa isweydiinay kelmadii waxay igu noqotay waran igu taagan iga dhaadhicila dadka saadaan salaadaysi iluusi acuud billahi min shaydaanka iska naar waa tan way hor taaganta isma og aqalkii baa asraysaa ismana og يا لحن كلا صار يا أفكار لكن حالتي هذا كلمتي ولي أورك كو هايستو لكن السجى أنا وحبة دريسين أيان معلم سوى سوري كوتشرة أو حلا سوى كرا على إنك تلفنك بان قبتي هلو لا لا ما هضليه هلو إنه إلى هذا ودوان سكرك haddana waa lagu soo celiyay cabaar kadib waan qabtay sidii oo kale lama hadlin mar saddexaadkii markii la soo garaacay isagoo suuliga saa uga soo baxay ayuu wuxuu qabtay laynkii daaradda uu qabtay laynkii daaradda markuu qabtay anigoo markaa yaabano shakinay sii kale ila waswaas baa igu jiray shakinay sii kale isla waayo qofkan aan ku soo garaacayo aan haddana kula hadlayn markuu qabtay baan kii qolkaana qabtay anteenooyinka ku taagan ilaa nimanka kii qolka markaan qabtay waa naag markaas leedahay waryaha ii waran waan fiicanahay meeday lacagtan kaa sugay waan soo diray waxna soo diri maysidee ilaa shalay ilaa darad badan waan soo diray oo kaliya tay lacagta noo soo dir waayo waan soo diray haddaan soo diray ma hadli karay gurigii waan joogaa iga dhig taleefanka taleefanka baa la dhigay maxaa samayn lahayd waqti xaadirka hablo maxaa samayn lahayd nimaad kaatay awaatimkii faadmo مسيرك بدنا آوي ما كل بوده يسافر ما طلع مسي عكتي دول كود جيسا وصلتور وان كل بوده يا وقت جالسان كسوم تكينا يا وصلك عكتي دول كود جيسا يا قرشي ديارنا سنة وأوينتا سيعود أنبياء ساقع هذا هو فاضمه وأتقرنا يسام فاضمه تماندو فوستو راح يكون جزء ريحة مسيرة هذه يا فاضل ولا كذا وأود تشيل سويتها عاو تيم كاتي تيم فاضل ولا يا ويشيفا والله عاو مغين مرقعوا ويمغين متشوغان مديرو متشوغان بقولي صدني الشن البضع على تاي اسكت هايو فاضل معه تيم كذا مغيه تيم كيف فاضل معه داغدا لغلا دغي داغدا لغلا بدعا والله واري يوغين بانو مالينا موغا ما شاء الله وردتكي وناكسنا با جوغا عاو ما يراهدين فاضمو والله فرتن قف يدي way u dajinaysaa tiimkaaga caawa daaqada lagala dagay way wallahi 60 qof kaliya taa waxay dhaheen waan kula kici lahayn 60 qof waa tiim caadifad ah tiim hor caraf ma sha Allah waxay sameeyeen lamaan hadlin kumaan oranaakan maxay tahay maan dareensin xitaa inaan wax maqlay ya sheekada way sii dhageysteen malaha faadmo adkaad may dhageysan wallahi هاي وان لمان هادلين ما ندرنسين حتى أنا تلفون مغلي وبحي ويسكا بحي
xawaalada markaa uu lacagta ka diraya hal xawaalad baa noo dhow oo isna wax ka dirdiraayo xawaaladaas unbuu lacagta ka diraya haye maanta waan iska joogayo beri oo kale markay tahay baan xawaaladii garaacay xawaalad markaa kuwa xawaalada anna wax waan ka dirdiraa isna wax waa ku diraa waa xawaalada kaliya halkan ku taalo waa xawaaladan ku xidhannahay halkaa markay marayso Faaduma maxaad isleedihiin way weydiinaysaa xawaalada gabadha magaceeda information ko buuxay soo weydiinaysaa waa malaynaya haye xawaaladii baan garaacay waxaan ku ori salaamu calaykum calaykum salaam alla walaal heerdhe odaygii wuxuu igu yidhi qolada xawaalada lacag iga siigee lacag uu malaa dirayay uu idinka dirayay buu yidhi ii dhiibo igu yidhi iga siigee lacagtii waqti baan waayey lacagtii horta u dambeysay idinka dirayay ma idin keena mayna muu keenin haa walaal iga siigee buu igu yidhi lacagtii markaa may waxay dhaheen lacagtu waa tee ma tii 500 ahayd markaasaan ku iri ma 500 buu ahaa horta wuxuu igu yiri la sii mar walaalo ma xasuusto wuxuu igu yiri magaca ii sheeg magacaan ku garanaya haye adkaat markaas uu lacagta u dambeysay 500 bay ahayd wuxuu u diray Faadimo hebel haye ha okay way walaal waan ku keenaya insha Allah haduu idin gudin la soo mari waayo aan waqti soo helo waan idin keenaya way inamadii telefoonka sidii ku dhigay markaa waxaan helay Faadimo hebel oo loo diray 500 markaa lacagta uu sii deynsaday waxaad ogeed xaajigu inuuna wax qarasho waqti xaadirka u hayay markaa aan wahayno xawaalada waan la sii hadli jirno inta naga sii dir hadhowna mar baa la isku siin jir okay waxaan markaa aan helay gabadha magaceedii wadanka iyo lacagtii loo diray ayaan helay imika ma u tagayaa ninkii imika kafool dagaal oo bilaabaya mise weli cadeyn baan sii raadinaynaa tiimadkaad soo tuuraysa bulkaad soo tuuraysa dadkii iminka kafool ayaan u galeynaa waa qosolka weli cadeyn baan sii raadinaynaa waa oohinta weli proof cad ma hayso Faadimo xog sugan ma hayso weli laakiin Faadimo xawaalada ma weydiisay markaa lambarka uu ku qoray tale lacagta may lambarka ma weydiin haye ma weydiin weli qabiyaa tahay hadda waa gartay waxa dhacday waxaan sameeyay maan weli dagaalka fool ah lamaan soo aadine waxaan garaacay gabadhii ay qaraabada ahaayeen ee isaga soo diri jirtay aan isnaqaanay Kenya joogtay baan garaacay isaga aan iyada isnaqaanay isaga xitaa nagu soo xidhay iska inaan isbaranay ka dambeysay waa gabadhii dushayda ka tustay oo iyadana isnaqaanay aqoon hoose isku lahayn ayaan garaacay waxaan ku walaal waxaan ku weydiiyey heblaayo hebel waa ayo maxaad isku tihiin markaasay tiri heblaayo hebel in adeertiis weeyaano halkan ay degan tahay markaasaan ku okay hebel in adeertiis weey maxaa kaa soo galay markaasaan ku miyaa la qabaa markaasay igu tiri walaalay garoob bay ahaydoo 2 caruur oo yaryar bay haysatayo balse maalin dhow nin baa i guursaday bay igu tiri oo uur bay hadda leedahay waa xaamilo lootarigii uu baxray uur bay hadda leedahay waa xaamilo markaasaan ku ninka guursaday miyaa taqaanaa markaasay igu tiri may walaal ma aqaan walaahi ma weydiin laakiin maalin dhaweyd baa la guursado hadda waa xaamilo markaasaan waxaan ku yiri waxaad samaysaa lambarkeeda ma isiin kartaa markaas maxaa kaa soo galay markaasaan ku leeyahay ninkayga lacag u diray way soo garaacay telefoonka way ila hadli weyday dhowr jeer lacag buu u diray mana garanayo ilaa hadda wax ka dhaxeeya lambarkeeda please ma isiin karaysaa ma sheegayo lambarkaaga inaad adigu soo siisayo lama ogaanay sirba inaga inoo ahaan ismaan kuu soo dirayaa bay tiri lambarkeeda bay soo dirtay marka aniga waxa isku qaban la waqtiga gabadhan iminka xaamilada ah in ay uurta ku siidi karto ilmo kamaanaan dambe wadankii waan ka soo keenay wax badan baa ka soo keenay wadankii oo ilmahaygii markii ka dambeeyay aan xareeyay baaba dhashay hadeero ilmo weyn oo waagii uu haduu soo guursaday aan wada soconay iminka way dhalay lahayd marka waxaad is leedahay ilmuhu waa horgal may oran jireen Soomaalidu wixii baa isku kay qaban meel salaad iska qaban la salaad ayaa meel iska qaban la
hee deetana waxa dhacday halkaa markay marayso muxuudiinow hee ayaa waxaanu sameynay gabadhii lambarkii bay soo siisay lambarkii baan garaacay halow salaamu calaykum calaykum salaam hebel soo maaha haa walaashay waxaan doonayaa heblaaya la dhahaa hebel xaaskiisii baan ahay waxaan kaa doonayaa adiga iyo ninkayga hebel waxa idinka dhexeeya inaad iga sheekayso hee waxaa igu tiri halkaa markay marayso gabadhaas may usoo turk gabadhaasi Faadimo afkay goosan doontaa ama mise way si yar oo wanaagsan bay ula hadlaysaa afkay goosan doontaa waa qosolka si wanaagsan bay ula hadlaysaana waa ooyinta ku soo Faadimo waxa dhacday muxuudiinow waxay samaysay wala waxay shiriin igu tiri maxaad aniga ii weydiinaysaa ma ninkaaga weydiisid walaal ninkayga ma weydiinaya adaan ku weydiinayaa adiga taleefankayga soo garaacay waan kaa qabtay wad ila hadli weyday waan ogahay inuu isagu kula soo hadlay lacagna inuu kuu soo diray waan ogahay ma ii sheegaysaa waxa adiga iyo ninkayga idinka dhexeeya taleefankii inantii igu dhigtay oo ku celiyay iga qaban weydo ku celiyo markay tiri dabkii kaa ridaysaa bay iga qabata waxay igu tiri hadda taleefankayga iga soo garaacin ninkaaga weydii waxa naga dhexeeya isagaa kuu sheegay maxaad aniga iga doonaysaa taleefanka igu dhigtay ku celiyay maalintii iga qaban weyday maalintii labaad miyaan ka daalaya ayaan garaacay ila waxbaan raadinay adduunka warbaa ugu gaajo kulul xog baan rabaa iyo war ma daalayo maalintii labaad baan garaacay waan ku celiyay way iga qabatay naa walaali ma taleefankayga iidaysa amaan siisid kuma siinayaan ku idhi hadaad kan xitaa aad imika iska xidho ku kalaan kaasoo garaacaya kuma siinayo ilaa aad ii sheegtid adiga iyo ninkayga waxa idinka dhexeeya inaan amaan ku siihay iga sugin adiga isoo garaacay anigu kuma soo doona adiga isoo wac gurigayga soo wacay marka waa inaad iiga sheekayso waxa idinka dhexeeya adiga ninkayga markaas igu tiri walaalay aniga ninkaaga waxba nagama dhexeeyaan gabadh uu qabo oo halkan joogta oon anagu qaraabanahay oon anigu isbaray ayaa jirta gabadhaas markaa uu mehersaday waagii aad timaadeen ayuu mehersaday deetana inanta markaa lama soo xidhiidho waxba uma soo diro gabadhaasa markaa uu dayacay gabadhaasaan lacagta uga qaadayay gabadhaasaana lacagta markasta uga qaada ilaa aan anigu la soo hadlo wax uga qaada mooye lama soo hadlo waa kow gabadhaas wax ka dhexeeyaan aniga isagana waxba nagama dhexeeyaan waxaan ku yidhi okay waay wadadan rabi haddaad kusoo dhacday gabadha magaceeda ii sheeg gabadha heblaayo hebel baa la dhahaa waayo waa reer qansax waayo waad mahadsan tahay taleefanka baa ku dhigay iminka xog dhammaystiran baan haystaa uu yimi uu iska seexday kumaan qaylin raggu markay saa u yimaadaan laguma qayliyo markaba intadiisu iska cunay ku sheegaysay si xaqiiqo ah wax kugu sheegtay miyaa yaa kuu sheegaya muxuudiin oo qish ka siinaya ana waxaan u malaynayaa inaad xunbaad cuskatay waxaa dhacday iminka laakiin xog aan ku duulimaa tegi karayo ayaan haystaa oo dhammaystiran waxaa dhacday uu yimi uu iska cunteeyey uu seexday kamaan waalin kamaan qasin maan dhibaatayn waxba maan weydiin iska seexay hadhowta markay uu soo kacay caruurtii iskuulka aan geeyaan raba inaan la hadlo waan ku wiri kaale waxaan doonaya maanta ha bixin waxaan doonaya inaan kula hadlo oo wax ku weydiiyo waa cool markaasuu igu yidhi dee waayahay iminka markaa uu shakiyey maxaa ku weydiin doontaa tiro waan tegay iminka waan degdegsanahay markaan soo noqdaad weydiinay iminka maxaad weydiinaysaayo warmay haddaan raba inaan taadan bixin aan ku xidhay asxaabba